ibidu waa xubin ku meel gaar ah waxay ku dhagan tahay darbiga ilmagaleenka badanaa waxay ku dhagan tahay qaybta sare ee ilmagaleenka mararka qaar ayay ku dhagtaa afka minka ilmagaleenka taas oo keeni karta inuu halis galo nolosha cunuga waxay samaysantaa bilowga cunuga marka uu caloosha galo waxayna dhaamaataa dhalashada cunuga marka uu bannaanka uga soo baxo ilmagaleenka hooyada ibida waxay isku xirtaa cunuga iyo xariga ka dhaxeeya hooyada iyo cunugeeda waxaa loo yaqaanaa xariga xudunta cunuga umbilical cord isku xirkaas waxa uu ka dhacaa ilmagaleenka hooyada ibida waxay cunuga ka caawisaa qashinka inuu iska saaro sidoo kale waxay u qabataa cunuga inuu qaato oxygen iyo inuu soo daayo carbon dioxide taasi waxaa loo yaqaanaa isbeddelka hawada gas exchange iyada oo loo marayo qulqulka dhiigga hooyada ibida cunuga waxay u tahay difaac ka difaacda ekfashinka ama caabuqa gudaha ibidu waxay soo daysaa hormoon taasoo ay ku caawinayso uurka maxaa saameeya caafimaadka ibida da'da hooyada waxaa jira dhibaatooyin ku dhaca ibida oo caan ku ah marka ay hooyada da' ahaan ka weyn tahay 40 sano sare u kaca cadaadiska cabirka dhiigga hooyada uurka mataanaha ah waxa uu saameeyaa caafimaadka ibida qalliinada hore oo lagu sameeyay ilmagaleenka waxay saameeyaan caafimaadka ibida qalliinada hore ee lagu sameeyay ilmagaleenka waxay saameeyaan caafimaadka ibida dhibaatooyin hore ugu dhacay ibida waxay saameyn karaan caafimaadka ilmaha dambe ibidooda sidee ayaa lagu yareyn karaa dhibaatooyinka ibida in ay hooyada ka fogaato cabista sigaarka hooyada in ay joojiso isticmaalka daawada dhakhtarka aanan u qorin hooyada in ay si joogto ah u tagtaa goobaha caafimaadka hooyada cadaadiska dhiiggeeda kacsan yahay in la maareeyo caafimaadkeeda fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalkani subscribe saar gambaleelka furo si ay kugu soo dhacaan xogaha aan halkani ku soo baahinayno waad madsan tahay